Assalaamu calaykum. Waa muuqaalkii labaad oo aynu ka samaynayno gorfaynta dhiganaha Hawaale Waran. Inta aynaan u gudbin cutubka labaad, aynu dhammaystirno cutubkii hore oo xaal yari inooga dhinnaa. Waxyaabaha aan ka tegay mid waa qodobo, midna waa xogo ku jiray cutubkii koowaad ee aynu muuqaalkii koowaad ku lafagurnay. Xogahaasi waxa ay lahaayeen murti aan jeclaystay in ay ka mid ahaadaan muuqaalka, kuwaas oo markii aynu ka hadlanay bulshadii Soomaalida ee uu abwaanku soo gaadhay ay ahayd in aynu halkaa ku soo qaadano. Waxaa murtiyaha ka mid ah bartiyaqaan bari uma korodho, oo laga wado haddii aanu qofku danta guud ka shaqaynin ee uu bartiisa iyo beledkiisa ka dan yeelo, wax u kordhaya ma laha. Laba, ama waa la muuqdaa ama waa la maqan yahay, oo ahayd in uu qofku noqdo mid waxtar leh ama uu ka maqnaado golaha haddii aanu waxba taraynin. Waxaa laga yaabaa in la isdhaho mahmaahdani waxa ay ka hor imanaysaa waxyaabihii diinteenna Islaamka ee milgaha iyo maamuuska badan ina fartay ee ahaa ikhlaas, oo ah alle dartiinnimo, in wax kasta loo qabto Ilaahay daraaddii iyo hor aakhiro. Waa maxay? Waa la muuqdaa, iskama hor imanayaan, oo muuqashadu ma aha muhiim in aad adigu dadka ka dhex muuqato oo magacaagu noqdo kan lagu wada hadaaqayo, ee waxaa muhiim ah in waxtarkaagu au muuqdo. Halkaa waxaa mudan in aan kaga faa'iidaysto hadal wax badan lagu celceliyo oo laga yaabo in khalad loo fahmo, kaas oo ah waa in ay taariikhdu ku xusto, kadibna dadka hadalka dhagahooda lagu badiyey ay u qaataan in iyaga magacooda la sheego oo ay muhiim iyo yool loo noolaado tahay. Waxaa markaas muhiim ah in aynu u dadaalno in waxtarkeenna taariikhdu xusto. Waxba magaceenni macno ma laha haddii addoonka xagga alle iyo samooyinka laga aqoonsado, addoomuhuna ama aadmuhuna waa shaki la'aan in ay aqoonsanayaan, ama haddiiba ay aqoonsan waayaan maxaa inaga jaban. waxa aynaan dul istaagin laba qodob oo uu abwaanku Allaha Shaafiye kaga hadlay cutubkii hore, kuwaas oo kala ah: 1. Garsoorka. 2. Sababaha dagaalada. Garsoorka. Haddii aynu ku horeyno garsoorka, dadku guud ahaan waa ay isku dhacayaan, Soomaaliduna gaar ahaan waa dad ay la soo darido dhibaatooyin dhanka nolosha ah. Dhibaatooyinkaasi waxa ay u baahan tahay cid fardaamin doonta. Waxa ay Soomaalidu odhan jireen 2 jir ilaa 20 jir haddaad qalqaalinimo ka weydo ka quuso. 30 jir haddii aad xarago ka weydo ka quuso. 40 jir haddii aad awood ka weydana ka quuso. 50 ilaa 60 jir haddaad geedka iyo garta ka weydo ka quuso. 70 ilaa 80 jir haddii aad salliga, tusbaxa iyo weysada ka weydana ka quuso. Geedka xaajada la isula imanayo iyo garta ninka wax ka keenaya waxa uu ahaa ninka da ahaan gaadhay 50 sano. Inkasta oo ay jirtay tixgelinta garaadka oo isaga oo aan gaadhin da'da, haddii uu garyaqaan yahay loo bannayn jiray golaha. Had iyo goor waxa ay garsoornimada qofku iman jirtay iyadoo oo talo faraha ka baxday, oo in la isku baxsadaa xabka tahay. Waa halka ay ka baxday mahmaahda Soomaaliyeed ee tidhaahda raganimo meel cidhiidhiyoon baa lagala baxaa, oo ujeedkeedu yahay in iyada oo gommadda la iskula jiro oo aad keento aragti lagu kala fardaamiyo dhinacyada ismaandhaafay, aad ku qaadatay arrintaa garyaqaannimo hor leh. Sababaha dagaalada. Sababaha dagaaladu waa ay badan yihiin, waxaase uu abwaanku Allaha Shaafiye tilmaamay geela oo ahaa meesinka ugu qiimaha badan uguna qaalisan ee Soomaalidu ay dhaqato, in uu ahaa kan isagu ugu badan xagga sababaha la isku dagaalo. Soomaalidu
waa dad reer guuraa ah, sidoo kale xoolo dhaqato ah. meel ayaa ay soo degayaan aanay hore u deganayn ee ay dantu keentay. waxa ay ugu imanayaan reero iyagu hore u deganaa ama ay meesha ku kulmeen oo iyaguna aag abaar ah ka yimi. waxaa halkaa ka dhalanaya ismaandhaaf ay gacantu xigto, sababta oo ah waa caado bulsheed in aad qofka wax isugu timaadaan. halkaas ayaa ay ka murtiyeedeen oo waxa ay dhaheen carab iyo labadiisa daan ayaa isugu dhow oo way isqaniinaan. cutubka labaad, Soomaalida iyo xoolaha. Soomaalida iyo xooluhu sida uu abwaanku Allaha Shaafiye sheegay waxa ay isku yihiin sida ul iyo diirkeed. waa ay la noolaadeen oo daryeeleen maadaama ay noloshoodu ku tiirsan tahay. waa ay kala barteen oo qaab aad u xeel dheer u darseen oo intaas oo goor ableeyeen. waxa ay ka eegeen dhinaca xilliga qooqa, markaasay 3 u qaybiyeen: awrka iyo orgiga xilli ku qooq, wanka iyo dameerka xilli walba qooq, dibiga iyo faraska calool ku qooq. waxaa jira cunwaan uu abwaanku ugu magac daray ka hadalsiin, oo uu uga jeedo bal in uu hadal u bedelo waxyaabaha ay Soomaalidu xayawaanka ku dhex nool noloshooda ku arkeen markii ay darseen kadib. iska dhaaf meesinka iyo xoolaha la dhaqdee, waxa ay mid u qaybeen caadooyinka bahallada iyo caadifadaha habardugaag. waxa uu abwaanku soo qaatay dhowr xayawaan sida waraabaha, danyada, dawacada, libaaxa. mid walbana waxa uu leeyahay caadooyin lagu yaqaano. tusaale, dawacada waxa markii ay arkeen ee ay la noolaadeen ogaadeen in ay leedahay 2 astaamood oo kala ah digtooni badan iyo khiyaamo badan, halka uu waraabuhu lidigeeda yahay oo nacasnimada lagu xanto. waxaana uu abwaanku ka sheekeeyey sheeko aad u qosol badan. libaax ayaa gaboobay oo howlgabay, isaga oo meel hog ah iska fadhiya ayaa waxa uu timid dawaco ama danyo. waxaana ay weydiisay waxa sidan u galay. waxa uu u sheegay in uu gaboobay, dawadiisuna ay tahay maskax dameer. dawacadii ayaa tiri aniga ayaa kuu keenaya. big bay tiri oo meel halkan ah oo ay ku ogay dameer ah ayaa ay isku sii daysay, oo inta ay u tagtay ku tiri war dameer, habar dugaag oo dhan shir dabadii waxa ay isla garteen in adiga laguu cimaamado boqorka habar dugaag oo dhan. libaaxi ayaana kugu sugaya hog halkan ah si uu taajkii caleemasaarka kuugu geliyo. haddii uu dameerkii is yiri hoggii galba, waxaa jidka ku sugayay libaaxi oo isla markiiba dhagaha ka goostay. inta uu dib u soo booday ayaa uu dawacadii ama danyadii ku yidhi maxaad ii shirqooshay? dawacadiina ilan waa khiyaamoolaye waxa ay war ugu dhammaysay waxaan maqli jiray dameer waa dameer, oo taajku miyuu kuu gelayaa haddii aan dhagaha lagaa jarin? isna ku lahaa waa runta. inta uu si kalsooni ku jirto hoggii u galay ayaa uu libaaxa inta uu hor fadhiistay ka codsaday in uu taajka u geliyo. isna inta uu madaxa ka jaray ayaa uu danyo u dhiibay oo yidhi aan intan isdhaafiye danyoy adigu madaxa kala jabi oo maskaxdii iiga soo saar. danyadii ama dawacadii inta ay 2 dhagax isu barkisay ayaa ay maskaxdii kala soo baxday oo isdhaafisay iyadu. libaaxina goor dambe oo uu dameerkii soo raqay isna soo dhaafiyey ayaa uu danyo ku yidhi danyoy isii maskaxdii. markaas ayaa ay ugu jawaabtay alla awowgayo, oo haddii dameerku maskax leeyahay miyuu halkan iman lahaa? waa Sakariya Haaruni oo idinkaga tegaya inta aynu muuqaal kale oo xiiso badan ku kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.